بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayo xaaladda uu ku sugan yahay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Dabcasan. taariikhdu waa maanta 18 bisha 12/2017. shalay waa taariikhdu ahayd 17 Cabdiraxmaan isagoo ka cuntaynaya hodheel ku yaalla magaalada Hargeysa siiba xaafadda calaamadaha ee ka dhow gegida diyaaradaha hodheel Carafa. ciidamada qaar ka mid ah ciidamada booliska ayaa ku xadgudbay Cabdiraxmaan oo u geystay jirdil iyo dhaawacyo aynu aragnay isaga oo ka hadlaya oo barnaamij toos ah kaga hadlaya dhibta soo gaadhay. sidaa lagama hadhin Cabdiraxmaan ilaa xalay waa la raadinayay, waa la baadi goobayay, lama helin. maanta oo ay taariikhdu ahayd 18 bisha 2017 Cabdiraxmaan waxaa lagu soo weeraray goobtii uu deganaa hodheelkii uu deganaa ee ku yaallay magaalada Hargeysa. albaabka lagu soo jabiyay sida ka muuqata barnaamijka tooska uu galay. goobjoogayaal halkaa joogay waxay noo warrameen Cabdiraxmaan in dil xun loo geystay, aad loo garaacay, askari kasta oo soo gaadha inuu nabaraynayay. waxaa halkaa ku sugnaa ciidamo badan, saraakiil sarsare sida naloo sheegay oo booliska ka mid ah oo goobjoogayaal ahaa, oo ay ahayd in ay Cabdiraxmaan faraan ciidankooda inay si nabada ku qaadaan. way awoodi karayeen, waa loo yeedhi karaa qofka, wax waa la weydiin karaa, lama diidayo. laakiin Cabdiraxmaan waxaanu xaqiijinaynaa in 2 jeer la dilay. hodheelkii uu ka cuntaynaya lagu dilay iyo hodheelkii uu hurday, labadaa hodheel lagu dilay oo la garaacay. waxaanu mas-uuliyadda iyo wax kasta oo soo gaadha dusha ka saaraynaa ciidamada ammaanka, siiba booliska ayaanu dusha ka saaraynaa. Cabdiraxmaan waxa weeye waxa uu yimi dabcan taariikhdu markay ahayd 13 bisha 12 2017 isagoo ka soo kictimay Maraykan. wuxuu u yimi ubadkiisa siduu u soo booqdo, gaar ahaan inankiisa iyo inantiisa Yaxya iyo Maryam. si nabadana waxa weeye uu ku joogay dalka. waananu ka xunnahay runtii, yani falka foosha xun loo geystay, xadgudubka loo geystay runtii waxay ka mid tahay, qayb ka mid tahay xadgudubyada muwaadiniinta loo geysto. ciidamada ammaanku waxay ahayd marka ay muwaadinka qabanayaan in ay yani si degan ku qabtaan oo ay kaxeeyaan oo ay u yeedhaan oo nidaam la maro oo maxkamad la maro, qof si fudud loo heli karaya. laakiin jirdil iyo dhirbaaxo waxay noqotay caado. waxaa ku maqan ciidanka bilayska garaacis ka daayo dad badan oo muwaadiniin oo reer Soomaaliland ay laayeen ayaa ku maqan. marka waxay u noqotay muwaadinku dhiiggiisa iyo dhirbaaxadiisu iyo garaaciisu wax fudud bay u noqotay. falka ay sameeyeen lagu sameeyay Cabdiraxmaan waa fal aad u fool xun, waanu cambaaraynaynaa, waanana ka xunnahay, waxaananu dalbanaynaa in xorriyadiisa si degdega loo socdiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.